sida dheemanka qaaliga ah iyo lacagta iyo dahabka loo ilaaliyo ama meel gaar ah loo dhigo ayay diinta islaamka u ilaalisay una xafiday gabdhaha muslimiinta ah. adigoo sidaas Allah kuu sharfay kuna qiimeeyay ka waran haddii aad baraha bulshada isoo dhigto adigoo isruxaya misna qof walba ku daabanaya aad moodo inaad tahay qofka adduunka ugu sareeyo balse xaqiiq waxay tahay inaad ahayn qof adduunka ugu sareeyo ee naftaada ee been kuu sheegayso. walaalayaal waa dembi iyo foolxumo ee gabdhow tiktoka iyo social mediaha noqda oo ka dharsan